waxaan ku salaamay Sheekh Shabili saan kadib waxaan salaamayaa dadhiyaha barnaamijka iyo waliba bahda TV-ga Soomaali Cable guud ahaan ba sheekha waxaan weydiin lahaa sheekhow imaamka markuu salaada dadka tujiye kadib ma banaanta inuu duceeyo jazaakallahu khayran sheekh alxamdulillah salaadaha faradka gadaashoodu xilliyada ducada la aqbalay ka mid tahay nabigeena ka soo sallallahu alayhi wasallam dubra salawaat al-maktuba ducada la aqbalo iyadoo nabigu sheegay ducada in la aqbalo isaga hadana mar walba salaada faradka tukan jiray saxaabada nabigu inta saxaabada la joogay mar walbana 5 salaadood tukanayay wili ma arag meel laga soo guuriyay dadka inuu duceystay waan aragnay isagoo adkaar iyo duca u akhristay laakiin meeluu nabigu dadka intuu ugu duceeyay aamin ku dhahan lama arag inta arkay wax soo guuriyay ma arag qolada la duceeyay iyo kuwa aan lahayn la intaba hadaba waxa is weydiin leh inaan is waafajino xilliga ducada waa la aqbalaa nabigu isaga faradka tukan jiray dadka mana hayna isagoo intuu duceeyay aamin dadka ay dhahan hadaba inta la duceeyay imaamku aamin in la dhahay sunnada nabiga kamid ma sallallahu alayhi wasallam wax joogta loo sameeyana sax maaha sunnada nabigu sida tii uu sameeyay looga dayda ay u tahay wixii ka tagayna ka tagitaanka in laga daydo mudan yahay iyadoo wixii keenay duca la aqbalay salaad baa la tukaday isaga imaamaha salaada dadka markuu tukada uu ku soo jeedsan jiray dhinaca safka midciisa midigtuu qaabili jiray adkaar buu ku akhrisan jiray xilliga duca la aqbali jiray baa la joogaa jamaacadiina way fadhiyaan maalin keliyana intuu duceeyay aamin lama dhihin haddaad tiraahdo anigu waan samaynayaa nabigu ma halmaamay sallallahu alayhi wasallam mise adiga wuxuu isagu ka tegay oo ka fiican hadda samaynaya runtii labada midna kuma jirta meesha qofkii marmar ay la qumanaatay xilli duca la aqbala wayta laakiin si joogta in loo sameeyo oo nabigu joogta wixii uusan weligii samayn sunnada nabiga kamid ma sallallahu alayhi wasallam billahi tawfiiq assalaamu alaykum